kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa maalinimo Arbacada taariikhduna ay ku beegantahay 4 bisha koobaad 2023 qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamida qaraxyo istaba joog ah oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kaasi oo lala beegsaday mas'uuliin iskugu jira xildhibaano wasiiro taliyayaal ciidan iyo waliba mas'uuliin kale oo markaasi uu kamid yahay gudoomiyihii degmada Maxaas qaraxyadani ayaa goobta lala eegtay waxa ku sugnaa mas'uuliin aad u tiro badan qasaaraha dhimasho iyo dhaawac halkaasi ka dhacay idin soo gudbin doona waxaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadani ururka al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoogan lagula jiray dhinaca kale waxa faahfaahin ka soo baxayaan deegaanada buuq koosaar oo shalayta ay dagaal xoogan ku dhaxmareen ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo ururka al-shabaab maleeshiyaadkooda oo markaasi lagu jabiyay dagaalkii shalay galab ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ururka al-shabaab oo qixinaya shacabka ku nool deegaanka Ceeldheer oo ku yaala xeebta badweynta Hindiya isla markaana ah goobo istiraatiiji oo ururka al-shabaab ay dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen kadib culays xoogan oo soo food saaray oo ay ka cabsi qabaan in ciidamada dawladdu ay dagaal ku soo qaadaan deegaanadaasi ciidamada dawladda ayaa ku sii qulqulaya deegaanada ay ururka al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka Galguduud iyo waliba Mudug iyagoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu ay soo bandhigeen deegaano aad u tiro badan oo ururka al-shabaab ay ka qabsadeen dhinaca kale xiisada magaalada Baydhabo ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii mucaaradka ay qaadaceen shirka maalinta bariye khamiista ka qabsoomi lahaa magaalada Baydhabo kaasi oo uu dhadhaxaadinayay oo cilaamiyay gudoomiyaha golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo markaasi isagu dhadhaxaadinayay xubnaha mucaaradka iyo waliba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxa iyadana ay soo taraya walaa xoogan oo laga qabo in xubnaha mucaaradka ay isku dayayaan in ay kala jabiyaan ciidamada iyo waliba maleeshiyada beeleedyo markaasi ay maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanayeen samaysashadooda oo ay doonayaan in ay ku qalqalgeliyaan amniga magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed dad shacab oo lagu xasuuqay magaalada Gaalkacyo iyo xiisad xoogan oo halkaasi ka taagan ayaa sidoo kale warkeena ku eegaynaa dhinaca kale waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo xiisadii halkaasi ka taagnayd iyo kacdoonka shacab ee halkaasi ka socda iyo ciidamada Somaliland oo iyagu sii wada xasuuqooda haldoorka iyo waliba aqoonyahanka reer Laascaanood ee markaasi ay ku leynayaan halkaasi madaxweyne Muuse Biixi khudbadiisii shalay galab oo iyadana ay ka dhalatay caraw weyn iyo shacabka reer Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada SSC oo markaasi cuqaasha iyo waxgaradka ay ku dhawaaqeen dagaal la galo Somaliland qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsanaya warkeena kaga bogan doontaan haduu eebeed mobilse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haduu soo gaaro muuqaalka like saara oo aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga oo nagu soo bira wayna idinka mahad celinayna la joogitaankeena mahadsanidin aynu ku bilownaysaa ka aroornimadii ay ururka al-shabaab waxa ay bartilmaameedsameen laba goobood oo markaasi ay ku sugnaayeen mas'uuliin iskugu jira wasiiro xildhibaano gudoomiyaal iyo waliba taliyayaal ciidan oo markaasi ku sugnaa gudaha degmada Maxaas labada qarax ee ururka al-shabaab ay markaasi soo agaasimeen oo ay doonayeen in waxyeelayaan mas'uuliinta ayay waxay ku beegsadeen oo ay ku dhufteen guriga gudoomiyaha degmada Maxaas iyo sidoo kale xeerada markaasi ay ku sugnaayeen xildhibaanada iyo waliba taliyayaasha ciidamada ee hogaaminaysay dagaalkii lagula jiray maleeshiyaadka argagixisada ee ururka al-shabaab qaraxyadani ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 15 qof halka dhaawacuna uu aad u tiro badan yahay walow tiro rasmi ah aysan dawladdu soo saarin balse si ordhaca ayaa loo shaaciyay in ka badan 15 qof in ay markii horeba ay ku geeriyoodeen qof nafti haliga oo markaasi miidaamiya ayaa wuxuu isku qarxiyay ciidamada ilaalada ee gudoomiyaha degmada Maxaas guriga markaasi uu ka degnaa degmada Maxaas gudoomiyaha halkaasi oo gudoomiyuhu markaasi uu ka maqnaa una sheegay inuu arrimo shaqo uu markaasi kor uga baxay balse ururka al-shabaab ayaa markaasi iyagu la dan lahaa bartilmaameedkooda inay dilaan gudoomiyaha degmada Maxaas oo qayb ka ahaa hawlgallada xoogan ee lagu jabiyay ururka al-shabaab ee deegaanadaasi qaraxa labaad ee ururka al-shabaab waxa ay ku dhifteen gawaari waxyaabaha qarxa ay ka soo buuxiyeen afaafka hore ee guriga uu ka deganaa xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar iyo mas'uuliin kale oo iskugu jira mas'uuliin xilalka haya Hirshabeelle iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya saraakiil ciidan oo markaasi iyagana hogaaminayay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee deegaanadaasi ka socda waxaana gabi ahaanba halkaasi ku geeriyooday ciidamadii ilaalinaysay guriga mas'uuliintu ay ku sugnaayeen iyo sidoo kale haween wax ku gadanayay afaafka hore ee guriga isla markaana maqaaxida dadkii fadhiyay ayaa iyagana dhimasho iyo dhaawac
dhaawac badan ay soo gaadhay waana goobta inta badan ay dadka dhintay ee 15 qof ka badan ay ku geeriyoodeen ee dhaawac badanna uu ka soo gaadhay maadaama afaafka hore uu ahaa goob markaasi shaah lagu kariyo oo lagu ganacsado dad badanna ay halkaasi fadhiyeen gudoomiyaha degmada Maxaas Moomin oo la hadlay warbaahinta VOA ayaa sheegay in iyagu ay bad qabaan isla markaana uusan wax weyn soo gaarin isaga iyo waliba xildhibaanadii ku sugnaa degmada Maxaas balse saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidamadii ilaalada iyo dad shacab oo tiro badan ayaa halkaasi ku geeriyooday iyadoo gurmadka degdega ee ka baxay magaalada Beledweyne ay halkaasi gaareen isla markaana la daadguraynayo dadkii halkaasi ku dhaawacmay balse khasaaraha rasmiga wali lama cadaynin oo wali waxa isdhex yaala meydadkii iyo waliba dadkii dhaawaca halista qabay oo wali aan si toos ah loo wada saarin ururka al-shabaab oo gacantooda ka baxay guud ahaanba gobolka Hiiraan ayaa waxay wadaan dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo markaasi maleeshiyaadku ay si dhuumaal ah weerar meel ugu qaadayaan iyo qaraxyada markaasi ay doonayaan in ay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed balse tabar kale ma hayaan oo waa lagaga taagroonaday dagaalkii dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ka socday gobolka Hiiraan dadka deegaanku waxa ay garab istaageen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gobolka Hiiraan waa goobtii ay ka bilaabatay kacdoonka shacab ee looga soo horjeedo kooxaha khawaarijta ee dagaalka ka wada gudaha dalka Soomaaliya shacabka gobolka Hiiraan horay ayay hubka u qaateen guud ahaanba waxa iyagu ay ka midaysan yihiin si kooxahan khawaarijta loo afjari lahaa ee waliba looga daba tagi lahaa gobolada kale ee dalka Soomaaliya ay u firxadeen shalay galab wuxuu dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Bukosaar oo ka tirsan magaalada Beledweyne halkaasi oo dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaana halkaasi ciidamadu ay ku soo bandhigeen in ka badan 30 dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi ay ku dileen iyagoo kooxdii kale ee markaasi baxsatayna ay ciidamadu saacada ku sii daba jireen goobta uu shalayta dagaalku ka dhacay waa amni waxaana gacanta hadda ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ururka al-shabaab oo markaasi aan la garanaynin goob ay kaga yihiin gobolka Hiiraan ayaa dagaal goosgoosa waxa ay ku soo qaadayaan goobaha markaasi ay ku sugan yihiin dadka shacabka iyo waliba dadka deegaanka ee hubka qaatay ee sida weyn uga hor imaaday waxa dhinaca kale ururka al-shabaab ay wadaan beegsi ay ku hayaan shacabka gobolka Hiiraan oo markaasi iyagu ay aaminsan yihiin in guul daradii ku dhacday ay u horseedeen shacabkaasi oo garab istaaga ay ciidamada u muujiyeen ay qayb weyn ka qaadatay in lagu jabiyo dagaaladii ay la galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ali Jeyti oo la hadlay warbaahinta Saaka ayaa isagana sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo afjaro haraadiga ururka al-shabaab ee ku haray gobolka Hiiraan gudoomiye Ali Jeyti ayaa horay u sheegay in inta ay haweenkooda iyo caruurtoodu ay joogaan deegaanada laga qabsaday in ururka al-shabaab aysan weerar joojinaynin taasi oo micnaheedu ay tahay in dhashi ay ka taalo deegaanada laga qabsaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan dhanka kale waqooyiga magaalada Gaalkacyo tuulo ku taala duleedka magaaladaasi waxa ka dhacay dilal ay geysteen dablay hubaysan oo rasaas ku furtay dad shacab oo fadhiyay goob ganacsi oo ku taala tuuladaasi iyadoo halkaasi ay ku geeriyoodeen dhowr qof dhaawacuna iyadana la soo tabinayo in uu halkaasi ka jiro dablaydan hubaysan ayaan la garanaynin hay'adooda iyo goobta ay ka soo jeedo iyadoo marar badan dhibaato ka geystay magaalada Gaalkacyo waxayna ogeyn maalmo ka hor in magaalada Gaalkacyo darafkeeda ay ku dileen 3 qof oo shacab ah oo markaasi ku sugnaa goob ganacsi iyagoo rasaas intay ku fureen kadibna goobtii ka baxsaday deegaankani waxa uu hoos tagaa gobolka Mudug waxaana maamulka Puntland halkaasi oo marar badan ay ka dhaceen dilal loo geysto dadka shacabka dablaydani ayaan la garanaynin goobta ay ka shidaal qaadato iyo waliba goobta markaasi laga soo abaabulay xiisada magaalada Baydhabo ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii mucaaradka ay qaadaceen shirka maalinta bariye ee Khamiista loo madlanaa inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo kaasi oo lagu dhadhaxaadinayay xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen shirkani oo uu dhadhaxaadinayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe markaasina loo asteeyay in maalinta Khamiista ee bariye 5 bishan January ay ku beegan tahay uu ka qabsoomo magaalada Baydhabo ayay gabi ahaanba mucaaradka waxa ay sheegeen in socodkii ugu horeeyay iyo dhisitaankii guddigii agaasimahayayba aysan markaasi ku qanacsanayn taasi oo ay sheegeen in gabi ahaanba shirkaasi aysan soo xaadiri doonin gudoomiyaha golaha shacabka oo khadka telefoonka kula hadlay xubnihii diidanaa ee shirka ayaa wuxuu dabcay inuu ku qanciyo in tabashooyinka ay qabaan gabi ahaanba la xalin doono balse loo baahan yahay in shirkaasi aysan qaadicin oo markaasi ay ka soo qayb galaan si loo gabagabeeyo
tabashooyinka iyo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya Cabdicasiis Laftagareen iyo weliba xubnaha mucaaradka ee doonaya markaasi inay u tartamaan kursiga ugu sarreeya madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed. Xubnaha mucaaradka ayaa dhinaca kale waxa ay qabaan tabashooyin la xiriira in looga baxay ballan uu u qaaday gudoomiyaha golaha shacabka oo ahayd in xilka qaadis lagu sameeyo cadaaladana la horkeeno taliyayaashii weeraray hoteelkii uu lahaa wasiirka hore ee maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ku yaalay magaalada Baydhabo, kaasi oo ay xaflad iyo weliba shir iyo abaabul ay ku qabeen xubnaha mucaaradka ayna kadib soo weerareen ciidamo taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen, kuwaasi oo saacado kooban ku soo afjaray dabley iyo maleeshiyaad ay ku ururinayeen xubnaha mucaaradka oo ay doonayeen in ay ku khalkhalgeliyaan amniga magaalada Baydhabo. balse gudoomiyaha golaha shacabka oo isagu ballan u qaaday bil ka hor in arintaasi xilligii ay dhacday uu isagu guda gali doono ayaan waxba ka qabanin sida ay sheegeen. waxa ayna tabashadan ka qabaan gudoomiyaha golaha shacabka haddii arintaasi aan la guda gelin in wax shira aysan iskugu imaanaynin madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. shirkani ayaa u muuqda inuusan qabsoomeynin maalinta bariya, balse gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gelinaya juhdi weyn oo markaasi uu ku qancinayo xubnaha mucaaradka ee tabashooyinka ka qaba shirkaasi ee la doonayay inuu ka qabsoomo maalinta bariya Khamiista. dhinaca kaleeto waxa ay sheegeen 7 xubnood ee agaasimaysa shirka in ay qaybsadeen gudoomiyaha golaha shacabka iyo Cabdicasiis Laftagareen, isla markaana aan wax qayb ah iyaga lagaga soo darin, taasoo markaasi ay u arkaan in uu khatar ku noqon karo 7 xubnood ee agaasimaysa shirkaasi. dhinaca kale xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ka sii daraysa iyadoo dadka shacabka ay sii wadaan dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo ciidamada Somaliland oo ay ku sheegeen in ay yihiin ciidamo hab qabiil u abaabulan markaasina gumaada haya shacabka magaalada Laascaanood. ciidamada halkaasi ku sugan ayay shacabku waxay sheegeen in ay argoosi iyo dilal ay ka wadaan magaalada Laascaanood, iyagoo weliba ku sheegay in ciidamadina ay yihiin ciidamo beesha Isaaqa oo ku soo duushay shacabka magaalada Laascaanood. si kastaba ha noqotee odayaasha dhaqanka ee gobolada Sool, Cayn iyo Sanaag iyo sidoo kale waxgaradka aqoon-yahanka ayaa waxa iyagu ay qabaan in gabi ahaanba ciidamada Somaliland laga saaro goboladaasi haddii wada hadal la doonayo in wax lagu dhameeyo, taasi oo baaqay ugu dareen madaxweyne Muuse Biixi. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi qaarkeed ayaa iyagana waxay qabaan in ciidamada goboladaasi laga saaro si loo wada hadlo oo markaasi wada xaajood looga galo xaaladii foosha xumeyd ee ciidamada Somaliland ay halkaasi ka geysteen. madaxweyne Muuse Biixi khudbadiisii shalayto ayaa iyadana ku jirtay in madaxweynuhu uu doonayo sida isaga uu sheegay in xaaladda marka hore ciidamadu ay dejiyaan kadibna ciidamada laga saaro oo laga xaaltamo wixii ka dhacay magaalada Laascaanood iyo dadkii halkaasi lagu laayay, taasi oo ay sheegeen inay tahay hab siyaasadaysan marnana aysan aqbalaynin. bayaan ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee goboladaasi iyo waliba garaadyada ayaa waxaa lagu sheegay in gabi ahaanba aan la aqbalaynin khudbadii ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi ee ahayd in ciidamada aan la soo saaraynin inta xiisadu ay sidan tahay, isla markaana loo baahan yahay in xal waara laga gaaro xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood inta ay ka sugan yihiin ciidamada, isagoo weliba sheegay in ciidamadu ay ilaalinayaan amniga shacabka Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada SAC. wuxuu dhinaca kale xusay madaxweyne Muuse Biixi in ciidamada sababta halkaasi loo geeyay ay tahay cabsi xoogan oo laga qabo in loogu soo dhaxdhuunto dibadbaxyaasha shacabka cadawga Somaliland ay ku soo dhaxdhuuntaan, taasi oo ula jeedo in ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland ay halkaasi ku soo dhaxdhuuntaan oo ciidamadu ay soo galaan magaalooyinkaasi. isgaarsiinta magaalada Laascaanood oo maalmo ka hor ay gooyeen maamulka madaxweyne Muuse Biixi ayaa la filayaa in saacadaha soo socota dib loo sii daayo, iyagoo markaasi ula gol lahaa in ay qariyaan xasuuqa ciidamadooda ay ka geysanayaan magaaladaasi iyo ciidamadu inay amar u haysteen in ay soo afjaraan dibadbaxyadii xooganaa ee ka socday magaalada Laascaanood. isgaarsiinta ay dansadeen maamulka Somaliland ay uga gal lahaayeen in aan markaasi inta baraha internetka lagu faafinin xasuuqa ciidamada Somaliland ay ka geysanayeen gudaha magaalada Laascaanood iyo sidoo kale tarxiilada shacabka ay sheegayaan inay ka soo jeedaan koonfurta dalka Soomaaliya. saraakiil u hadashay ciidamada Somaliland ayaa xaqiijiyay in ay dawaan galiyeen in ka badan 200 oo qof oo markaasi ay sheegeen inay qayb ka ahaayeen carqaladayntii iyo dhibaatadii ka taagneed magaalada Laascaanood, isla markaana aysan ahayn dad u dhashay deegaanka ama gobolada Sool, Sanaag iyo waliba Cayn. waxaa dadkani ay sheegeen inay ka soo jeedaan koonfurta dalka Soomaaliya, iyadoo Somaliland horeyna ay u tarxiishay dad aad u tiro badan oo caruur iyo haween u badan oo markaasi si xooga qasaba lagu saaray gawaarida oo laga dajiyay xuduudda Puntland iyo ay leeyihiin goboladan SAC ciidamada Somaliland ay ku sugan yihiin. qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyay tan iyo mid ka xiga inta aan ku kulmaynana waxaan idinka tagayaa amaana Allah.